وبرجي لبي لباتنكي جون سندي كو سغال بقول كوبيا فرتنكي waxay ahayd subax aan weligeed leylaawi doonin qorraxdu si tartiib ah ayay u soo baxaysay iyadoo ka soo dhex muuqanaysa cirka casaanka ah iftiinkeeda leemiga ah wuxuu si degan u dul saarnaa buuraha iyo dhirta qoyan ee xadka u dhow waa daqiiqadahaas u dhaxeeya mugdiga iyo iftiinka marka noloshu u muuqato mid nasiine iyo rajo leh laakiin subaxdaas qorraxdu ma ahayn mid nabad la soo baxda wax yar ka hor 5tii subaxnimo waxaa dhulka waqooyiga Yurub kilkilay dhawaqa diyaarado duulaya guuxa taangiyada iyo ciidamo malaayiin ah oo qarka u saaran inay jabiyaan daldhan waxaa bilaabmay howlgalkii ugu weynaa ee taariikhda inta la og yahay in ka badan 3 milyan oo askari oo wata kumanaan taangi diyaarado dagaal iyo gaadiid ciidan waxay bilaabeen weerar ballaaran wuxuu ahaa dagaal u dhaxeeya laba awoodood oo dunida saameyn weyn ku lahaa laba mabda oo iska soo horjeeday iyo laba ciidan oo aan midkoodna rabin inuu jabo balse intaas kadib maxaa dhacay waxaa bilaabmay dagaal ka weyn mala awaalka bini'aadamka dagaal ay ku dhinteen malaayiin dagaal bedelay jihada dagaalkii labaad ee dunida waa sheekadii la magac baxday Barbarossa howlgal ciidan oo aan ka hadlayn kaliya taangiya iyo rasaas balse ka hadlaya damac kibir iyo khasaare ba'an oo aan la soo koobi karin magacaygu waa Cabduuli Mucallim Aalto halkanina waa Hogaan 24 Media haddaba haddii aad u aragteen muuqaalada noocan oo kale aad wax ka faa'iideysid like saar si aan u ogaano tirada danaynaysa haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay channelkeena subscribe saar si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelino share dheh si uu u gaaro muuqaalkan asxaabta jecel Hitler wuxuu rumaysnaa in Sofiyeetku uu yahay cadow taariikhi ah shuuciyadda iyo faashistiyadda aysan marna wada noolaan karin sidoo kalena wuxuu doonayay kheyraadka Ruushka oo ay ka mid yihiin saliidda haruurka biraha si uu ugu guuleysto dagaalka Yurub oo dhan waxa uu arkay Ruushku inuu yahay dal jilicsan ciidamadiisuna aysan diyaarsaneen howlgalkani waxa uu lahaa ujeeddo cad taa oo ahayd burburinta midowga Sofiyeeti iyo qabashada Moscow Leningrad iyo Ukraine kuwa oo ka mid ahaa meelaha ugu muhiimsan Hitler wuxuu sheegay in howlgalkan lagu dhameyn karo wax ka yar 3 bilood balse taasi ma aysan dhicin markii uu weerarka bilowday ciidamada Jarmalku waxay heleen guulo waaweyn maalin kastana waxay burburinayeen saldhigyo waxayna qabsanayeen magaalooyin iyadoo kumanaan askari oo ciidamadii Sofiyeetka ahaa la qabtay ciidamadii Ruushka intooda badan waxay ahaayeen kuwa aan diyaar u ahayn weerar caynkan ah Jarmalkuna wuxuu adeegsaday xeelad degdeg ah oo loo yaqaanay Blitzkrieg ka oo diiradda lagu saarayo hub isku dhufan oo ay ku jiraan taangiyo diyaarado iyo madaafiic kuwaas oo ujeedkoodu yahay inay kaga gudbaan khadadka cadowga magaalada Leningrad waxay gashay go'doon Moscow ayaa la beegsaday Ukraine waxaa lagu xasuuqay 100,000 oo rayid ah laakiin markii la gaaray xilliga jiilaalka wax walba way isbedeleen ciidamadii Jarmalka ma haysan dhar diiran shidaal ku filan iyo cunto xilligii jiilaalka Ruushka wuxuu noqday cadow cusub oo aan la jabin karin taangiyadii Jarmalka ayaa istaagay barafka askartiina qawowgii ayaa dilay intaanu rasaastu dilin dhanka kale Sofiyeetku waxay heleen waqti ay dib isugu abaabulaan waxa yimid ciidamo cusub qalab cusub iyo niyad dagaal oo xooggan magaaladii Moscow waxay noqotay halkii ay Jarmalku ka laaban lahaayeen markii ugu horeysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka waxaana la gaaray xilligii uu howlgalku burburi lahaa dagaalkii Barbarossa wuxuu sababay khasaare baaxad leh malaayiin askari ayaa dhintay malaayiin rayid ah ayaa la barakiciyay halka magaalooyin badan la burburiyay waxaa la dhisay xeryo xasuuq waxaa dhacay dambiyo dagaal oo aad u foolxun Hitler wuxuu lumiyay kalsoonidii ciidamadii Jarmalkana waxay galeen dagaal aan dhammaad lahayn oo laba jiha ah waxaa la yiraahdaa Barbarossa wuxuu ahaa bilowgii dhammaadkii Jarmalka Naasiga dagaalku wuxuu bedelay jiho Sofiyeetiga
waxay bilaabeen weerar celin Leningrad oo ay Jarmalku goodoomiyeen 900 maalmood iyadana ma aysan qabsan. inkastoo si adag loo goodoomiyey magaalada, haddana dadka magaalada waxay muujiyeen geesinimo aan caadi ahayn, waxaana la galay dagaalo waaweyn. dagaalkii Barbarossa, inkastoo uu Jarmalku bilowgii guulo degdeg ah gaaray, balse ugu dambeyn waxaa guulaystay midowgii Sofiyeeti. ciidamadii Sofiyeetiguna waxay difaac xooggan kaga hortageen ciidankii Jarmalka. weerarkii ugu dambeeyey Jarmalka ee magaalada Moscow, obareshikii la magac baxay Typhoon, ayaa guuldaraystay dhammaadkii sanadii 1941. sanadkii 1942 ilaa iyo 1943 Sofiyeetigu waxay bilaabeen weeraro waaweyn oo dib u riixaya Jarmalka. dagaalkii Stalingrad sanadii 1942 ilaa 1943 wuxuu noqday meesha Jarmalku si buuxda uga guuldaraystay. waxaa bilowday bixitaankii Naasiga ee Ruushka oo dhan. in ka badan 775,000 ilaa iyo 1 milyan oo askari oo Jarmal ah ayaa ku dhintay, halka kuwa dhaawacmay ama la waayay ay ahaayeen in ka badan 1 milyan iyo bar intii lagu guda jiray dagaalkii Barbarossa. dhanka kale ilaa iyo 4 milyan oo askari oo Sofiyeeti ah ayaa iyana ku dhintay, halka tirada shacabka iyo askarta dhaawacmay ama la waayay ay ahayd in ka badan 10 milyan. laakiin dhammaadkii guushu iyaga ayay raacday. ugu dambeynna midowgii Sofiyeeti ayaa dagaalkii Barbarossa ku guulaystay. guushan waxay noqotay barta beddeshay jihada dagaalkii labaad ee adduunka, waxayna ugu dambeyn horseeday in la jabiyo Naasigii Jarmalka oo ay xukunka lumiyeen sanadii 1945. howlgalka la magac baxay Barbarossa wuxuuna barayaa in xisaab khaldan, kibir siyaasadeed iyo dulqaad la'aan ay keeni karaan burbur qaran. ma ahan dagaal keliya ee wuxuu ahaa dagaal ah nolol iyo geeri, xornimo iyo caburin, midab iyo mabda. sheekada Barbarossa weli waa digniinna tusta qiimaha nabadda iyo khatarta uu leeyahay dagaal ba'an. dhanka kalena waa digniin taariikheed oo inoo sheegaysa qiimaha nolosha iyo khatarta fikirka xagjirka ah ee awoodda doonaya. taariikhduna waa muraayad lagu eego wixii hore ee dhacay si looga fogaado khaladaadka berri. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, sabskraibna dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheergaranaya muuqaalkan. mahadsanid.